waxaanu halkan ku taagannahay afar xildhibaan Jamaal, xildhibaan Saciid iyo xildhibaan Yaasiin. muddo badan ayaa ka soo wareegtay intii masiibadu ay haleeshay suuqa Waaheen. walaalayaal si ogtihiinba waxaa halkan yaala oo dawladda hoose aanu ku haynay qasnadahaasoo badankoodu ay gubteen, laakiin qaarkood markii ay dadkii lahaa yimaadeen ay wax ugu tegeen ama lacag ha noqotee ama dahab ha noqotee. muddadii ugu dambaysay iminka dad badan baa noo imanayey, dadkaasoo qof waliba uu isagoo furihii sitay intuu yimaado haddana aanu qasnadiisii garanaynin. taasi waxay keentay muran badan. markaa maanta waxaanu halkan ka ilaaminaynaa bisha 13keeda haddii ilaahay ka dhigo oo ku beegan maalin Arbaca ah in dhammaan dadkii qasnadaha lahaa ay dawladda hoose yimaadaan 10 subaxnimo haddii ilaahay ka dhigo. waxaanu walaalayaal doonaynaa maalintaa inaad dhammaantiin timaadaan, aanu annaguna makhraati ka ahaano, aanu halkaa joogno, dabeeto qof waliba qasnadiisii uu furto, kii wax ka helaana uu kala baxo, kii wax ka waayaana uu halkaa kaga tago. annagu waa ammaano aanu intaasoo dhan haynay. markaa waxaanu idinka codsanaynaa inaad farriintaa isgaadhsiisaan. bisha 13keeda waa maalin Arbaca 10 subaxnimo inaad timaadaan xarunta dawladda hoose haddii ilaahay ka dhigo. markaa maalintaa aanu ilaaminay wixii ka dambeeya dadku haddii ay iman waayaan annagu mas-uuliyaddeeda qaadi mayno. dawladda hoose hantida ku jirta wixii ku jira way furaysaa, waxaananu ku dari doonnaa qaadhaankaa loo ururinayo maxay ahayday suuqa Waaheen. markaa fadlan ha lagu dadaalo inaad maalintaa timaadaan 13 bisha maalin Arbaca 10 subaxnimo qasnadihiinii haddaad wax ka heshaan saa u qaadataan. aad baa mahadsantihiin.